بسم الله الرحمن الرحيم أنا شرماكا وجامع حرسي waxaan soo dhaweynaynaa dawladda la soo xukuumadda la soo dhisay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenku xukuumadda ay soo dhiseen waa xukuumad tayo leh ummaduna ay ku qanacsan tahay saasaanu shacabka iyagu aanu soo dhaweynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعد وحسن جان حسن أنا كم بدأ رير بنتلان حالة الله يوم ما أنت حكومة عصبة مدحونا بنتلان وصور السي ومدن الدوري وما فكر لقى بنا يو سيد برشاد واركتو ده برشاد ريت كان كم بدأ بنتلان محايد مدحونا حكومة صور السي وصور ويرنا بقول وأنا حكومة دي السوقية وحنا مقطع مدحونه حكومة محايد إننا نقصو حلن قبيل ama reer inuu qanciyo laakiin uu ku soo xulay aqoontooda iyo kartidooda marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maadaama aan nahay bulshada rayidka waxaan leenahay madaxweyne waa ku maasantay golaha wasiirada soo magacawday waxay ahaydey waana kugu hambalyeynaa golaha wasiiradana waxaan leeyahay reer Puntland ayaa laynii magacaabay qoys iyo qabiil laynii magacaabin reer Puntland oo dhan baa u shaqeynaysan reer Puntland baa wasiir u tihiin wasiirka saxafiiska lagu dhiibo dadka reer Puntland waa isku kaamid laakiin reer gaara هاو حرين أما محيادي أدين ترجع حفيز كان له بان لا يهاي مدحوننا وكم سياي برمان كانوا حن لا يهاي وسيرة سيد مدحون صدوري إنه كانوا عود ككرسون دوسية سي بنتلان وش غيان يدرس كرير بنتلان يوم ما تصير الصومالية لما أنتي السلامية وكفر حسنا هاي دولة وكفر حسنا هاي دولة بدلان وكي هاي مدحوين الدني وسيرة وما شاء الله دولة وما شاء الله وأنا كفر حسنا هاي dalka iyaga iyo dawladda iyada iyo madaxweynaha iyaga inta ka badan baarlamaanka waxaan dhahayaa inay iyo xukuumaduba shacbiga Soomaaliyeed ee Puntland doolarka qaaliga naga jabiyaan بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ويديسين قولها وزيرada ee xukuumadda cusub ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni hada aragtideeda hadaan ka dhiibto waxa oran karaa waa wasiiro active oo dhalinyaro badan aan ahayn wasiiradii hore fadhiidka ahaa ee odayaasha ahaa aan ahayn rag aqoon-yahana oo laga sugayo inay bulshada wax badan ka bedeli karaan ana aragtida ra'yiga hadaan cabiro sida wasaaradda caafimaadka oo kale wasaaradda amniga oo nin ku fiican Cabsimad Galan loo dhiibay oo kale waxa oran karaa wasiiro active oo wanaagsan oo xilkooda ka soo bixi kara oo aan ahayn wasiiro fadhiida عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa marka hore shaqaalaha SPC aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ay bulshada iyo shaqada ay hayaan marka labaad waa soo dhaweynaynaa golaha wasiirada inkastoo ay wali jirto in madaxweynaha ay u muuqato inuu tixgeliyay kaliya si uu xilka u sii hayn karo oo xildhibaanadu ay keeneen dadka waxaan dareemaynaa inaysan qaab cadaalada wasiiradu ku iman laakiin waa shaqo wanaagsan baan u rajaynaynaa kulay dadka cadaaladda deeqda laakiin xukunku ma deeqo waan u hambalyeeynaynaa shaqadooda waan ku qabanaynaa laakiin madaxweynaha waxaanu mar labaad xusuusinaynaa inuu wasiirada iyo xildhibaanada kala duwo ayaanu jeclayn aad baa u mahadsantiin mar labaad SBC waan salaamay madaxda sharafta leh ee Puntland waxaan ka codsanaynaa horta khayr Allah si hanolaato dawladda Puntland korada ka dhigo cadawgooda la jabiyo madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka si sharaf leh ayaa loo arkaa wasiirada la magacaabay waa wasiire federaal oo daacada oo xaq oo xuquuqiya laqdaba lama sameyn wax la qadano qabiil ma naqan annagu doobana wasiire wacdaada shay dawladda Puntland khayr Allah Saciid Maxamed Deni iyo Axmed Garaas hanoo la cadawga jabo annagu waa taageersanahay ama kullahana miyaan kullahana waa taageersanahay dawladda Puntland بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdiraxmaan Muuse Faarax ku nool degmada Garowe gobolka Nugaal haddaan eego xukuumadda cusub ee madaxweyne Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo xalay soo saaray
waa soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol waxaana u taalla shaqo aad u baahsan hadday amni tahay hadday dhaqaalo tahay hadday horumaradii kale tahay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay shaqo adag baa laga sugayaa waxaana rajaynayaa in si degdega loo ansixiyo shaqada taalla iyo xaaladda iyo wacyiga lagu jiro awgeed waxa weeye dalka kan howlo badan baa ka jira howlahaas loo idmada iyagana culayska ilaahay u fududeeyo annaguna waa ku garab istaagaynaa waana soo dhoweynaynaa xukuumadda waana mahadsantiin SBC adeega aad ummadda u haysaan oo dalkiina aad ugu shaqaynaysaan insha Allah waa idin soo dhoweynayaa idinkuna waa mahadsantiin reer Puntland oo dhan waxaan leeyahay guul aad iyo aad baa u mahadsantiin magacayga Sumayo waxaan soo dhoweynayaa golaha wasiirada cusub waxaan ugu baaqayaa inay si fiican hawshooda u gutaan waan soo dhoweynayaa